sanadka ah ee madasha Haldor oo ah bandhig lagu iftiimiyo halyeeyga daahsoon ee ku hawlan horumarinta daryeelka iyo u qareemidda bulshada ayaa lagu qabtay Muqdisho iyadoo la boqoray markan kii ugu mudnaa waxaana si lama filaan ah ugu guuleystay majaajileysta Cabdulqaadir Cabdikariim Abbahaa wala boqoray awa Abbahana waa dun kale hambal leenahay waxaan soo dhaweynayaa majaajileysta Abbahaa ayaa abaalmarintan ku mutay quudinta kuwa baahan ee aan qalo iyo quraac toona meel ku ogeyn u ololeynta dadka cudurradu daashadeen oo dhakhtar awoodi karin iyo maaweelinta kuwa madluumka ah ee waayuhu ciileen waxaana lacagdan 300,000 oo dollar oo ay ku yabooheen dad muxsiniin Soomaaliyeed uu gaarsiiyay danyar ay duruufuhu dabreen oon cid iyo deeqsi toona hortii helin waana majaajileysta iyo samafale guri kiro ah ka degan Muqdisho gudoomiyaha Haldor Dayax Axmed Maxamed ayaa sheegtay in madasha Haldor ay u dhisan tahay inay dhiirigeliso dadka waxqabadka muuqda la yimid ee kaalinkoodii ka soo dhalaalay Haldor waa barnaamij marka aragtidiisu ay saas tahay gaar aan lahayn madal dhalinyaro madal Soomaaliyeed waxa ka muuqan doona qof kasta oo dalkiisa iyo dadkiisa xutaray waa maxay jeedadu waa in dadka la dhiirigeliyo kow iyo in madashu ay noqoto diiwaan lagu qoro diiwaan gelisa daawacda kaydisa dhaxal reebta diranayaasha bulshada u diran madasha Haldor oo daaqaday saafalka daahsoon ee majaajileysta Abbahaa ayaa ku abaalmarisay kutubka Quraanka Kariimka ah leh calanka qarankeena Soomaaliya iyo abaalmarinta halyeeyga Haldor 200,000 dadkan inka sheegay diilaan oo sheegay lacag 300,000 waay waana bixin 11 bilood marka waxa lagu socdo ala shidaal anigana lacagta aan bixiyay badaa ii dhiibay laakiin anigana meesh sida loogu talagalay qofka $282 dhibic 6 senti markuu soo diro 6 sentigaas anaga waa buuxinaa waxaan ka dhigaynaa $1 hadii kalena $1 laga dhigaa saasa lagu dhiibaa qofkii dibadda jooga wuxuu leeyahay nin 200 iyo saasaan diriye xawaalada maxay ii goosatay $20 hay wiilashii aan u dhiibin waxay goostay ay ka $1 ku daray xildhibaan Sikriye Xaaji Maxamuud ayaa sheegay in khayrku ku jiro in loo qareemo dadka aan codkoodu meel dheer gaari karin haddana qaba baahiyo gaar ku ah oo daruuri ah awoodkan awood weyn weeye waayo wuxuu xiriir la leeyahay ilaahay iyo quraankiisa saadabtiin xadiis nawawi oo saxiixa ay gaajaysan raadsan yaa naag jirkeeda gadata biyo ay siisay jannada lagu geeyay ama qashimaanu leeqsadas waa xadiis Bukhari saxiixa kama baarak qof bini aadam ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya xildhibaan Fawziyo Xaaji Aadan ayaa sheegtay in baahi loo qabo samafalayaal u qareema dadka tabaaleysan si ay gargaar uga helaan walaalahooda ladan waxayna bogaadisay ololaha samafalka majaajileysta Abbahaa Abbahaan waxaan ka arki jiray marmar anigoo bisi oo cararaya TV laakiin inuu hawsha ku jiro ma aan ogeyn waxaan leeyahay hambalyo qalbiga meel ka soo go'day badan buu ka farxiyay waynu arkayna isagoo la ooyo la ilmeynaya xitaa waxa weeye wax lagu farxo weeye waxaan leeyahay hore u soco aad iyo aad baan kugu wada mahadhaynaa dhalinyaraduna intaas iyo in ka badan waa samayn karaa qof kasta waa dadaali karaa wuu samayn karaa